agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda dawladda hoose Khadar Yuusuf Cali telefishinka qaranka Soomaaliland ugu warramay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgallo ay dawladda hoose ka sameysay caasimadda Hargeysa kuwaas oo ay ku soo qabteen dawooyinka iyo raashinka dhacay ee muddadoodu ay dhaaftay waqtigii loogu talagalay in la isticmaalo iyo howlgallo kale oo digreetadii madaxweynuhu ku madnuucay bacaha ayagana ka fuliyeen gudaha magaalada Hargeysa isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri runtii maanta shirkan jiraayid ayaan ku qabtay xafiiskayga waaxda arrimaha bulshada dawladda hoose waxa uu runtii daaran yahay ama ay ujeedadiisu tahay inaan bulshada u iftiimino waxyaalihii runtii nooga soo baxay olole ballaaran oo la xiriira faydhowrka iyo bilicda caasimadda oo runtii caasimadda ka socday bishii February iyo bishan March ayaan ku jiro ololahaasi oo runtii si weyn looga dareemay caasimadda guud ahaanna runtii si toos u target gareynay sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka bulshada iyo bilicda magaalada waxaan jeclahay inaan waxyaalo badan oo outcomeski ka soo baxaya aan halka wax ka taataabto muddadii ololaha socday runtii bishii February waxaan ku guuleysanay inaan gacanta ku soo dhigno 35 tan oo badeecado dhacay ah oo runtii suuqa lagu iibinayay noocyada kala duwan ee alaabooyinka ka kooban iyo daawooyinba guud ahaan dadkan ku soo qabanay sharcigan marnay waxaan ku soo gudbinay runtii si process sharciga waafaqsan goobihii loogu talagalay ayaan ku soo gudbinay bishii February bishan March ayaan ku jiro waxaan 9 cisho horreeyay ku guuleysanay inaan gacanta ku dhigno 12 tan oo iyagana runtii aan ku soo gudbinay dhanbisaad koonfurta caasimadda sidoo kale arrintaas waxa keentay in markaa ay baraarugaan ganacsato fara badanna uu dambo ganaaxii cuslayn ka qaadinay dawooyin fara badanna lagu soo wareejiyo oo istaba socda imka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa Mubarak runtii company oo isagu nagu soo wareejiyay 12 tan oo alaabooyin dhacay ah oo iyaguna soo gudbin runtii arrintaasi waxay keentay isbedel fara badan xagga caafimaadka bulshada gaar ahaan waxyaalaha dhaca oo runtii caasimadda aad ugu fara badnaa iminkana aad moodayna aad u soo yaraanaya maalinta ka dambaysa shalayto bishu ay ahayd 19 bishan March 12 subaxnimo waxa lagu qalay dooxa weyn bartamaha dooxa weyn caasimadda neef bakhtiya oo lo ah oo runtii laba nin oo daadoodu dhaxaysan midna konton jir yahay midna 60 cagacagay ay runtii harga kaga saareen dooxa weyn caasimadda gudaafad dhexdeed neefkaasi oo ay ugu talagaleen markaa inay dadka iibiyaan nasiib wanaag markii waan ogaanay gacantaan ku soo dhignay nimankaasi maxkamadaana u diyaarinay in loo gudbiyo neefkiina runtii gacantaan ku dhignay oo isla markiiba waxaan saaray runtii cagaftii iyo iskurwadii waxaan ku soo gubnay runtii meelihii loogu talagalay runtii taas waxay waxyaalintan naxdinta leen la kulanay sabtidii waxaan anaga iyo maayarka caasimaddu iyo degmada Axmed Dhagax iyadana la kulanay hilib bacayso ku jira oo halloor ah oo lagu shubay runtii koonfurta caasimadda wadda gumareedagteeda hilibkaasi oo aan markan baaris ku sameynay aad ugu ekaan kalluun ahaa hase ahaatee baaristiisii socoto runtii bartaasan ku gubnay hilibkaasi caasimadda wax badan baa markaa ku soo kordhay oo weekan aan runtii baaristooda aad u wadno hilibkan sidiisaba dee waxyaalaha ugu bakteeriyada badan marka la qalo ayuu ka mid yahay u baahan in si standard caalami loo ilaaliyo waxaanu sameynay slaughter house lagu control caafimaadka ku neefka marka hore waa la baaraa caafimaadkiisa number 2 waxa la ilaaliyaa in marka standardkii la rabay lagu qalo neefkaas haddana lagu soo qaado qalab nadiif ah haddana la soo gaarsiin meeshii lagu binay halka lafteedana lagu ilaaliyo oo isagoo nadiif ah bulshada u gudbo tii waa la iska yimid waxa dhacday tan aan idin sheegaynaa in neefkii bakteeriyadiisii isaga ku dhex noolayd aan oo hadii jeer ku baxdo marka dhiiggaas qofka neefka la qalay taas ka baxday inta badan at the same time hilibku waxyaalaha markaaba sida dhibteeru contaminate garooba laba bakteeriya soo weerara mid waa taa ku dhex jirta oo hadii aan laga basrin markaaba iyadoo hilibku waxyeesha talabaadna waxa weeyaan tan dibadda kaga imanaysa de marka neefkii lagu dhex qalo meel aan hygiene waxa shiishinood garanaysan dhibta ka imanaysa halis baan runtii nimankaas caasimada Giriyeero way u talagaleen inay ummad badan ku waxyeeleeyaan cudurro badan oo ka dhasha xoolahaas markaa xumaaday aynu keenahay alxamdulillah waan ku guuleysanay nimankaana maxkamad baan la tiigsan doonaa kana harmayno oo daba socon doonaa kiiskooda waxaan imika soo jeedsan doonaa caafimaadka runtii waxyaalaha hilibka uu ka yahay maadaama waxyaalaha noocaas ficilada ay imkaan ku guuleysanay gacanta ku dhigno in aanu runtii standardkii dib ugu noqono processka hilibku maro from slaughter house ilaa iyo halka miisku ka imanayna
uu noqdo wax sugan oo aan lagu dhex dhuuman karin. geesta kalena waxa agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda ee dawladda hoose oo fariin u diray digniina dadka ka ganacsada alaabooyinka ay muddadoodu dhaaftay isagoo uga digay in ay ka waantoobaan isla markaasina ay la soo socodsiiyaan dawladda hoose si ay ugu wargeliyaan ciddii lagu qabtana ay mutaysan doonto xadhig iyo ganaax intaba. bulshada laakiin waxaan ku codsanaynaa inay baraarugaan oo imika sida ay u soo jeedaan ay gacan siiyaan tiimamka dawladda hoose ee runtii ku howlan wax ka qabashada caafimaadka iyo fayadhowrka caasimadda. talabaad ganacsatada baraarugteen waxaan leenahay halkaa kasii wada nin walba isbaadh wixii aad qabato ee kugu dhexdhacayna iska soo gudbi isla aroornimada ama kartoon ha noqoto ama ha ka badnaato waad keenaysaa dawladda hoose waan kaala wareegana. ninka laakiin lagu qabto shelfiskiisa ama isaga oo expire meel ku kaydsaday aanu riboodkiisa keenin waxaan u aqoonsan doonaa kuwii dawada galka ka bedelayay sharcigaana la tiigsan doona. waan ugu digaynaa markaa bulshada nin walba oo expire meel ku hayo aad riboodkiisa kan hadhow taha cabanin horta ololahan mid istaagay maaha ilaa inta aanu ka xaqiijinayno in caasimadda runtii aanu ka tirtirno badeecadaha dhacay ma istaagayo midaanu ka laabanayno maaha waa waajib qaranku naga sugayay. ganaaxuna wuu sii bilaabmi doonaa un qaar badan oo la maxkamadeeyeyna way iman doonaan. hase ahaatee wuxuu ku istaagayaa hal qodob war nin walba hadduu isbaadho oo isagu hagaajista meeshiisa oo waxyaalihii dhacayay uu ka daayo dee anagu markaa automatically hawsha howlo kale aanu geli doonaa imika aanu noo qorshaysanayno hudheeladii iyo waxyaalaha inspection ku samayno kaararkii caafimaadka aan bixino oo dadka runtii dee cudurrada faafa shaqaalaha laftooda serviceka siinaya la baadho waxyaalo badan baa noo harsan oo hawshu imika below tahay. hase ahaatee laakiin kolba waxaan doonaa qaybta aanu u dhaqaaqno inaan xaqiijino taasina waxaa ku imanaysaa nin waliba inuu isaguna ishagaajiyo oo uu markaa dee qof waliba inta ku beegan waajibkiisa ka guto. niman kalaa jira iyaguna aan gacanta ku dhignay oo iyagana aan kiisas waaweyn ku qabanay runtii oo runtii aan maxkamadda u gudbinay waxyaalaha naxdinta leh dawooyinka aidiska runtii sharciyan waxa commissionka aidiska oo qurata ee controla sidoo kale meelo gaara laga bixiya waa mamnuuc in dawooyinka meelka lagu qabto. waxaan soo qabanay dawadii lafteedii iyo ganacsi kale oo electronic system ah iyo wax aan isba waafaqaynin oo runtii la isku walaaqay oo la isku dhex iibinay waa waxyaalaha naxdinta leh ee ummadda lagu haligayo weeye. kuwaasi iyo kuwo kaloon u tuhnay inay yihiin kuwa ka bedela galka ama taariikhda baabiya ee shaambadaha fuujiriga sameeyba waan gudbinay baadhistooda inuu socota. wixii kasoo baxun baana yeelan doonaan dadkana waxaan leenahay wax kastoo tuuntana naloo soo gudbiyo annaga dawlad hoosaanna way naga go-an tahay in aanaan hawsha habeeniyo maalinba ka fadhiisan oo aanu sii limilaabno. waxaan jeclahay fariinteeda labaadna inaan ganacsatada kala hadlo bahasha bacda la yidhaha bacda madaxweynuhu wareegta kusoo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland runtii deegaankiina aafi ku noqotay dhaqaale burbur badan bay keentay xoolaheena halis bay gelisay caafimaadkii bulshada iyo bilicdii magaalooyinkaba runtii waxay ku keentay dhibaato aada u fara badan. taasi waxay keentay markaa in si heer qaran loo mamnuuco bacdaasi ilaa imikana ganacsatadu faraa kala may bixin. baashii waa la wadaa waanu ognahay nin waliba wuu qariyey in yar buu isticmaalayaa maalin walbana waan soo qabanaa bacda ganaaxyo culusna waanu saaraa. iyagana saas ma horta loogu waday ganaaxa ninka xabad baca lagu qabtaa waa dambiile. waxaanu gaadhsiin doonaa haddii aad faraha kala bixi weydaan in qofka aad alaabta ugu soo ridaan intaanu agtiina fadhiisano aanu ku qabanno oo isna idinka noo soo kiin gudbiyo weligiinba hoosta geliya iyo khasnada ku gura bacdaasi laga hadhi maayo adeerogeynaan isuguman bac iyo expire anigu taasaan horta idinka dardaarina bac iyo expire dawladda iyo qaranka jamhuuriyadda somaliland way ka go-antay in la dabargooyo. waxyaalahan aadka haddaba ula yaabay in maanta bulshada halkan ugu soo bandhigaya waxaa kamid ah waxaan aada ugu argagaxay nimankaa baktiga qalaya shalayto waxaa jira dad ergo u socda oo runtii acyaantii bulshada ah oo mas-uuliyiini ka mid tahay. waxaan la yaabanahay ninka dawada runtii iyo waxaan kala bedelaya ee expireka dadkii kuwa u doodaya waa ninka adiga hadduu wax ku yeeli waayo adigu iskaba tahayba ka xitaa dhiidkiisa carruurtaada ayaa armidaas ku maqan tahay. faraha laga qaado ergada expireka faraha laga qaado ha laga qaado bulshada meel laga soo jeesato. wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi.